السلام عليكم haddaad tahay qof xiiseynaya inuu barto taybinka muuqaalkan dhammayso una sheergalay walaalaha raba ayagana inay bartaan taybinka si ay uga faa'iidaystaan fursaddan bilaashka xaqiiqatan intaanan bilaabin isticmaalka programkan waxaan wax u qori jiray sidaan oo kale kaliya waxaan isticmaali jiray labadayda farood anoo markaas ku raadinaya xarfaha mana fiirin karin shaashadda sababtoo ama ahayn oolaan isku qaban karo inaan shaashaddan aan fiiriyo keyboardkina xarfihii aan ka raadiyo way jireen koorsooyin aan ka qaatay iskuulaad laakiin sida programkan uu ii caawiyey oo kale iima caawin yaanaan warkii idinku daalin aan idin tuso programka iyo siduu u shaqeeyo muuqaalka nama dheera shaah iyo caano iyo waxbaa doonan si fudud ayaan kugu tusi doonaa oo waqti aanan kaa qaadanaynin let's go haye saaxiibayaal marka ugu horeysa waxaad u baahnaanaysaan laptop ama desktop oo leh browser maadaama waxaan la baranayna ay yihiin typing keyboard ayaad u baahan tahay browserka google ama chrome ama safari midku ahaadaba ku qor waxaad ku qortaa typing.com isaga kuu soo saari doono midka ugu horeeya oo tida bluega ku qoran tahay waa isaga ku dhufo markaad soo gasho wuxuu u egyahay sida website-ka dhexdiisa gacantaada midig qaybta kore waxaad ka arki kartaa login iyo sign up maadaama aad ku cusub tahay sign up aad leedahay wuxuu ku weydiinayaa arday miyaad tahay mise macallin raba in typing dad baro haddaad rabtid inaad baratid ama qof inaad bartid ay ku xiran tahay hadda anaga student aan nahay arday ku dhufo sign up as a student wuxuu ku geynayaa marka qaybta diiwaangelinta waxaad samayn kartaa google account-kaaga gmail-ka inaad ku samaysatid ama si kale email-ka waa optional kuma qasbanid marka waxaad ku qoraysaa information-kaaga username samayso ay ku leeyahay mararka qaar wuu kaa diidayaa wuxuu ku leeyahay qof ayaa horey u samaysay marka adiga number un wax ku dar passwordna samayso meeshan hoose sax wuxuu ku leeyahay 13 sano ma ka weyn tahay privacy iyo term of service iyo ma ogoshahay waxaas ku leeyahay sign up marka gudaha programka markaad soo gasho gacanta bidix ee dhinacana waxaad ka arki kartaa qaybaha levelada beginner intermediate iyo advanced bilow dhexaad iyo darajada ugu dambayso barnaamijku waxyaabaha kale uu bixiyo waxaa ka mid ah in codingka computer science iyo waxaas inuu wax ka baro iyo diyaarinta shaqada iyo waxaas laakiin muhiimadda ugu weyn ee diiradda ay saarayaan waxaa waaye typingka level walba sida beginnerka waxaa ku sii jiro levelo kale ilaa iyo 15 ayay gaarayaan xiisad walbana waxay diiradda ku saarayaan xarfo 3 xaraf oo kale hadda midda ugu horeyso J F iyo space ayaa diiradda lagu saari doonaa ayagana waxaa ku sii jiro 11 kale dhammaadka level walba waxaa jiro imtixaan yar oo laga qaadayo assessment imtixaano kalena way jiraan marka aad dhammayso oo kale si aad u fiirisid levelka aad maraysid meeshan kore ee lessons agteeda tests meeshay ku qoran tahay galaysaa haddaad rabtid 1 daqiiqo oo imtixaan ah 3 daqiiqo 5 daqiiqo 1 page 2 page waad samayn kartaa sidaad u tijaabisid hadba meesha aad maraysid aan ku soo laabano lessons qaybta ugu horeysa JF iyo space aan galno wuxuu ku tusayaa marka codka aan xiro codkiis waad arki doontaa marka qalad samayso iyo waxyaabo kale codkiisa xoogaa uu yara dheer yahay waxay kugu bilaabayaan marka video oo ah ay kugu sharxayaan muhiimadda typingka uu leeyahay iyo sida iyo waxaas ay ku tusayaan haddaad rabtid waad daawan kartaa muuqaalka codkiisa uu dheer yahay waad daawan kartaa muuqaalkan haddaad rabtid waa 1 daqiiqo haddii kalena skip ayaad dhihi kartaa sida aad ka arki karto keyboard kale ayaa shaashadda kugu qoran uma baahnid keyboardka oo laptopkaaga inaad fiirisid oo soo foorarsid waxaad fiirin kartaa keyboardka shaashadda ku qoran oo markaas asaga kuu tilmaamayo farta aad qaadi lahayd ilaa aad kala qabsanaysid sidaas ayuu ku tusayaa sida aad ka arki kartid faraha waxaad saaranaysaa 4 dhinac midig 4na dhinac bidix ma aqaan ina horey u aragtay wuxuu leeyahay keyboardka F iyo J hakad yar ayuu hoos ka leeyahay fartaada ku dareemi kartid marka adigoonan fiirin ayaad iska saari kartaa marka gacantaada suulashana waxay ku saaran yihiin space-ka You found it.
Remember where to begin. Type the letter J. Congratulations. You have completed this screen and earned 3 stars. You spent 1 second and your speed averaged 96 words per minute with 100% accuracy. Press the enter key to continue. aad ka gudubtid waxay ku siinayaan natiijadaas waxay ku sheegaysaa word per minute ama halkii daqiiqo meeqa eray ayaad ku qortay iyo accuracy oo ah qaladaadka aad samaysay iyo inta aad saxday marka word per minute ka hadda waxaan keenay waxay ahayd j hal xaraf oo kaliya way fududayd marka 96 ayuu leeyahay laakiin average ka hadda waxaan dhihi karaa 40 word per minute ama dad ka sii badinaan way jiraan dad oo professional ah oo ka sii badinay way jiraan oo laakiin sida average ka oo qofka hadda un bartay oo kale 40 waa sidaan isdhihi karo average waxaa kaloo uu isticmaalayaa geemam yar kugu xiisi gelinayo inaad typing aad ku baratid geemamkaas waxaa ka mid ah geemkan oo jumping tree ay dhahaan marka geed ka gudub use your left index finger to marka oo xarfo kale ay ku qoran yihiin waxaan isdhihi karaa xogaha waa way ku xiisi gelin kartaa use your left index finger to type the F key programkan sida hore u sheegay waa mid free ah oo bilaash lacag la'aan ah waxaad ku baran kartaa inaad sidaad ka arki kartid meeshan maalintii 15 daqiiqo oo kale inaad isticmaashid oo aad ku baratid maalinba hal line oo kale aad sidaas aad ku baratid haddii aad heli karto laptop ama desktop haddii isun guriga ku yaalina meel internet cafe ah oo 15 daqiiqo 30 daqiiqo aad kareysan kartid haddii aad wax ka faa'iiday muuqaalkan fadlan like share na u dhow walaalaha siday uga faa'iideystaan waad ku mahadsantahay daawashadaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh